بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرنامج كيني لبعض أما قيبتني لبعض برنامج كيه نوجو ما قدرناي ولي ما أوفر ست تطبعت معلمتي هراء أما حلقة دي هراء برنامج كوح إنه كيش هكيني نعموك إلهي نسيه قار كمذا إن شاء الله تعالى برنامج كنا لبعض واحد إنه كجور همنا ما أنت قدر مهمة أو dadka muslimiinta Ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu dhaxdhigay xiriirdo kala duwan xiriirdadaasi midba meel buu ku joogaa laakiin bini aadamku markastoo diinta ka sii durkaan xiriirdadaasina way furfurtaan deedna taas waxay keentaa in bulshadu kala daadato qaybihii iskugu dhawaan lahaa inay noqdaan qaar kala fog deedna dhexdooda markaasi ay fiintu marato ama markaasi ay dhibaato dhexdooda ka dhacdo qaraabada ayaynu soo qaadanaa dadka horta qaraabada sidee u yaqaanaa qaar ka mid ah daawadayaasha inuu weydiinay qaraabada sidee u arkaan ayaan idiin soo gudbin doonaa laakiin ka hor inta aanan idiin soo gudbin dadka si aragtida ay qaraabada sidee u arkaan Ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu ka dhigay qaraabada in dadku is xiriiriyaan oo is dhaweystaan oo walaaltinimadooda xoojiyaan oo xumaanta dhexdooda taalahay ka saaraan wuxuu ka dhigay mabaadi'da ugu waaweyn islaamka بسم الله الرحمن الرحيم haddii mabaadi'daas uu dhaawac gaaro jiritaanka bulshada oo dhan ayuu dhaawac gaaraya quraanku in fara badan buu ka waran axaadiista nabiguna calayhi salaatu wasalaam in fara badan bay iyaguna ka waran culimada ayaa in badan ina wacdida oo aayadaha iyo axaadiista iyo sida loo fahmay iyagu inoo sharaxeen kulay marar fara badan baad dhageysatay laakiin marka kan waxaan isku xasuusinaynaa qaraabadeena xiriir nooceenu la leenahay maxaynu u qabanaa yeynu qaraabo u naqaana qaraabadaasi dadka xaq ay nagu leh xaqooga miyaynu siinaa intaynu u tagno cudurdaar ma u geynaa oo ma nidhahnaa waan ku soo booqan waayey waxbaan kuu qaban waayey iga raalliyahow ma cafis ma weydiisanaa intaanu ilaahay liis dheer oo su-aalaa qaraabada aan laynaga weydiin waxaa laakiin arrintaa barbar socota hadduu qofku qaraabo goys noqdo talo dembi intee leeg buu yeelanaya dunuubta ugu waaweyn islaamka weeyaan ee qofka ilaahay uu markaasi ku ciqaabo quraankuna wuu ka digay digniin aad u weyn oo qofka argagax gelinaysa markuu dameer leeyahay ayuu ilaahay uga digay qofku inuu qaraabo goys noqdo waxa laga yaabaa waxyaalo yaro minor ah ama aad u kooban inay dadku ku kala tagaan bari buu wax siin waayay ama bari baan wax weydiiyo ila hadli waayay wax yaro basiida in marka nolol dhan oo ilaahay uu doonay inay jirto in lagu kala jaro marka barnaamijkeenu taas uu ku saabsanaanaya maxaynu ka helanaa faa'iido nooceenu ka helanaa inaynu qaraabada xiriirino bini aadamku waa faa'iido doon haddii imika la yidhaahdo businesskaasi aad baad uga faa'iidaysa isla markaaba bini aadamku wuxuu u tafaxaydanaya siduu businesska u hirgeli lahaa haddaba qaraabada oo la hagaajiya waa businessyada ugu waaweyn ee ilaahay agtiisa wax lagaga helo
qofku had iyo jeer wuxuu ku dadaalaa caafimaadkiisa, wuxuu ku dadaalaa jiritaankiisa, wuxuu ku dadaalaa inaanu dhaawac soo gaadhin, wuxuu ku dadaalaa inuu markaasi physical ama muuqaalkiisa guud uu markaasi si qurux badan u muuqdo. haddii maanta la idhaahdo jiritaankaaga wuxuu kusii hagaagaya waxa qofku wuxuu markaa u tafaxaydanaya inuu waxaasi sameeyo. qaraabadu waxay ka mid tahay waxyaalaha jiritaanka qofka hagaajiyay ka mid tahay. kow, faa'iidooyinkeenu ka helna maxaa ka mid ah? guul bay nafta siisaa. naftuna guul had iyo jeer ayay raadisaa inay guulaysato. guul noocee siinaysaa? nolosha meelaha uu qofku doonayo inuu success ka gaadho ama uu ka gaadho guulo ayuu ilaahay u fududaynaya tabaaraka wa tacaala. kow. laba, waa akhlaaqiyaadka ugu wanaagsan oo islaamku u baahan yahay inuu qofku ku sifaysanaado. qaraabadiisa qof hagaajiyey waxa weeye ilaahay agtiisa akhlaaq fiican kaga sugayay. qof ilaahay agtiisa akhlaaq fiican kaga sugana markuu qofku adduunka ayuu ilaahay ugu soo dhaadhicinaya. dadka oo dhan baa markaa akhlaaqda wanaagsan qofka markaasi u aqoonsanay. qof ilaahay aqoonsaday marka dhulka loo soo dhaadhiciyo bini aadamku qasab buu ku qaadanaya aqoonsigaasi oo ku aqoonsanaya. waa sabab ka mid ah sababaha jannada lagu galo. waa faa'iidada ay leedahay. faa'iidooyinka kale ay leedahay waxaa ka mid ah qofka arsaaqda ayay u barakaysaa. wuxuu ilaahay siiyey baa u barakooba markuu qaraabadiisa si fiican u xidhiidhiyo. cimrigana ilaahay wuu u barakeeya. oo qofka haddii la idhaahdo 30 sana jiraysa ama 40 sana jiraysa iyo haddii la idhaahdo 80 sana jiraysa keebuu dooranaya qofku? waxa waala isla markaaba inuu doorto inuu 80 jiro. 80 aan xanuun lahayn oo aan dhibaato kale oo adduunyo lahayn oo noloshu u wanaagsan tahay inuu 80 isla markaaba dooranay. waxyaalaha lagu helayo inuu cimrigu dheeraado ama barakoobo waxa ka mid ah qofka qaraabadiisa xiriiriyo. xataa haddii aanu hayntiisa xun tahay inuu markaa hadal wanaagsan iyo booqasho iyo kooga markaasi talo u baahan talo siiyo iyo ka dayacan markaasi tabantaabiyo talo ku tabantaabiyo ama markaasi wixii uu heli karo uu siiyo iyo markaasi inuu ka warhayo si guudba. markaasi waa waxyaaluhu markaa qofku uu qaraabadiisa ku xiriirinayo. marka qofka barakada cimrigiisa ayay barakaysaa, arsaaqdiisa ayay barakaysaa. qofka maxaa laga doonayaa? kow, markuu qaraabada xiriirinayo inaanu u xiriirin in la yiraahdo hebel qaraabadiisa u xiriiraya, laakiin waa inuu xiriiriyaa inuu ilaahay ku raali gelinayo subxaanahu wa tacaala. ilaan camal kasto inuu qabanayno waxyaalaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah qofku inuu ikhlaas la yimaado. bal haddaba qaraabada noocayna u naqaanaa. qaar ka mid ah daawadayaashaan weydiinay qaraabada yaad u taqaanaan qaraabadiina ee daawasho wanaagsan waxyaalaha inay yidhahdaan. magacaygu waa aadan mataan xasan. aadan, yaad qaraabadaada u taqaanaa? qaraabadaada yaad u taqaanaa? qaraabada waxaan u aqaanaa horta qaraabadu way laamo badan tahay. qaraabada waxa weeyaan ehelkaagu ah abtiyaasha, adeerada, xitaa waxa soo galaya qaraabada. waxa soo galaya xitaa qaraabada waxa soo galaya hooyada saaxiibadeed, aabaha saaxiibadii way soo galayaan qaraabada. saaxiibada qaraabada way ku jiraan. xuquuqda kugu leeyihiin maxaa ka mid ah? xuquuqday kugu leeyihiin waxaa ka mid ah dee ilaahay baa koobi kara, laakiin waxaa ka mid ah inaad ka warhayso, aad ilaaliso, aad booqato kii buka, aad magaranaysaa booqato kii dhinta, aad janaasadiisa raacdo, kii dee wax u baahan aad ogaato. xuquuqda kale kugu leeyihiin waxaa ka mid ah dee inaad diinta gaarsiiso, dacwadda gaarsiiso. weli qaar ka mid ah ma isku dhacdeenoo ma ku kala tagteen? wallaahi qaar ka mid ah waanu isku dhacnay, laakiin kuma kala tagno. markaan ku cadhoodo ee aanu cadhoonno waan ku noqdaa. wax yar kadib waan ku noqdaayo, laakiin weli kumaanaan kala tegin. qof dib baan u xidhiidhiyaa. qofkii aanu isku dhacnay. sanadkii mise jeer baad booqataa ama bishii mise jeer baad booqataa? miyow tiro kuma garan karo, laakiin dadka qaraabada ciddii lay soo sheegay dhibaata ku dhacday waan booqdaa. laakiin cidda kale ee aan dhibaata ku dhicin had iyo jeer waqtiyada firaaqaha, jimcaha iyo khamiisyada iyo waqtiyadaasaan isku dayaa intii aan gaari karo inaan soo booqdo. magacayga waxaa la yidhaha Mukhtaar Yuusuf Xasan. qaraabo yaad u taqaanaa? dadkan waa qaraabadaydii. qaraabadaadu waa ayo? qaraabadaydu waa ehelkayga ah. jaarku uu soo galaya qaraabadaadii. laakiin inagu markaan Soomaaliga iyo kale eegna qaraabada waxaan naqaanaa wixii aad wax wadaagtaan dee amba ilmaadeer, abtiyaal, edo, adu wixii wax isu tihiinuun ayna qaraaban ilaahna inta badan. laakiin cidii isku dhowdiina dee dadka waxa qaarba 10 sanadood jaartiin iyagoo qaraabadaadi weyn. marka qaraabada sid u xidhiidhisaa? qaraabada wallaahi inta badan businesskan ku dhex jirnaa intaanu fasaxnaan baanu anaa hawsha haynin si fiican baanu soo xidhiidhinaa. bishii mar ma is arki kartaan? bishii haddana wax dhibaato jirin ma u tagtaa, ma booqataa, jadwal ma kugu jiraan? toddobaadkan reerkaasaan soo booqday, toddobaadka dambe sidaa jadwal miyaad u samaysataa had iyo jeer? dee inta badanba maba joogaba meesho oo ka maqanay waddanka maba joogaba. magacaygu waxa weeye Mukhtaar Cumar Cali. Mukhtaar,
yaad qaraabadaada u taqaanaa qaraabadaada waa ay qaraabadayda waxaan u aqaanaa ilmaadeeraday aabbahay iyo tafiirtayda reerkayga ayaan u aqaanaa marka inta badan waxaan jecelay inaan xidhiidhiyo waan ka warhayaa waan ogahay haa bishii sanadkii toddobaadkii maalintii qaab nooceeyaad marka qaraabadaada u xidhiidhisa waxaan u xidhiidhiyaa inta badan waan la hadlaa inta badan telefoonooyinka way isbedeleen wax waliba qof walba telefoon buu haystaa marka waan xidhiidhiyaa waan la hadlaa habeenkii oo kale qaar baan la hadlaa subaxii qaar baan kala war qaadanaa wada hadalaa inta badan aabahayna waan wada nool waan wada joognaaba marka qaraabadaada ma in gaaraad ku xidhan tahay mise qaraabadaadu way kuu siman tahay dhammaantood qaraabadaydu may ii siman tahay ma kala jeclaysto inta badan samafal aad u qabatay maxaa xasuusan kartaa aad iyo aad haa samafalku dee gacan in wax laga sii noqon karaa wuxuu noqon karaa in kelmad wanaagsan la siiyo marka samafalku wixii tala iyo tusaalaha ku tari karayo wixii faamligayga ah aan tusi karayo waan tusaa oo waanan u sheegaa waxaasaa ku wanaagsan sidaa yeel waan idhahdaa wixii layga baahdo markaasaan kari karayana waan bixiyaa haa yaad qaraabo u taqaanaa qaraabo waa ciddii aad intaad wax isku tihiin iyo inta jaarkiiba qaraabadaada kula noqonayaan ma xidhiidhisaa si joogta haa aad iyo aad bil baad ku xidhiidhisaa ama toddobaad baad ku xidhiidhisaa ama maalin baad u xidhiidhisaa ama sanad baad u xidhiidhisaa adugu sidii aan ugu fursad ugu hayan jaanis ugu hayaan u xidhiidhiyaa waayo iminka aniga aabbahay qofkay saaxiibka yihiin waa inaan si gaara dad kale u iga xiga waayo aabbahay bay saaxiib yihiin markaa waxaan anigu aad iyo aad u dareemayaa qof kasta oo waxaan ku idhi qaraabo ah ood qaraabo aad tihiin waxa weeye qof kasta oo saaxiibtiinba qaraabaad tihiin yaasiin nagib way qaraabada yaad u taqaanaa qaraabo yaa ku ah kolley qaraabada siday diintu sheegtay waxa weeyaan dadka aad dhinacyo badan waxaad ka wada wadaagtaan sida jaarka dadka xagga naska ku kala soo dhow ayaa qaraabo inta badan loo yaqaan maad xidhiidhisaa inta badan mise marar badan baanad xidhiidhin ma inta badan marka dee dhibi timaado ma la iska warhayaa inta badan dadku kala mashquulsiinta kale markaa sanadkii bishii toddobaadkii maxaad inteebaad qof qaraabadaada u tagta adigoo aanay dhibaato haysan waxaa laga yaabaa jimcayaashoo kale inaan xasuusto ayadhaa haa maanta qofkaa hebel aad soo higi karaysaa may way dhacdaa kolba si u kala dhow yihiin ama wakhtigu jaanisku ku siyaa laga yaaba inaad soo eegto waad magacaaga sheeg isla magacaagu waa maxamed cabdikhaliid maxamed qaraabada ka warseed u xidhiidhisa qaraabada qowda waa diiniya qof wala intii la diinta ka garasiya u xidhiidhinaya marka anigu kolley waxaan filayaa qaraabada kuma xumi aad baad mahadsan say dadkaasi inoo sheegeen qof kastaa wuxuu sheegay siduu qaraabadiisa u xidhiidhiyo wuxuu inoo sheegay oo kale qofku cidduu qaraabadiisa u yaqaano waxyaalaha halkaa inooga soo baxay waxaa ka mid a dadku inay mashquul yihiin oonay ogeen qaraabadooda oonay ogeen jaarkooga oonay ogeen markaasi waxyaalo fara badan oo ilaahay marka aakhira la tago naga xisaabinayo oy ka mid tahay markaasi qofku inuu markaasi jaarkiisa ka warhayo oy ka mid tahay qofku inuu qaraabadiisa ka warhayo aanu ogeyn waana waxyaalaha had iyo jeer jiritaanka dadka barakada ka qaadaya ee dadku inay isku cadhoodaan qabyaaladu fara badato hay xumaantu xoogaysato cidba cid nacdo waxyaalaha sababta u ah ayay ka mid tahay qofka waxaa laga yaabaa inuu reerkiisa u doodo oo dagaal ugu jiro qaraabadiisina ay dayacan tahay oonu war fara badan aanu ka haynin sida inooga muuqatay hadalladaasi ay markaasi daawadayaasha kala duwan inoo sheegeen ilaahay subxaana watacaala qur-aanka in fara badan buu kaga warramay qaraabada inuu ina weydiin doono cidda markaasi jartana uu markaasi isna jarayo ama markaa ilaahay uu ciqaab adag usoo rogay marka inaynu taa iska ilaalino waynu uga faa'iidaysano markay waqtiyada khayrka badan yimaadaan sida bisha barakaysan ramadaan oo kale xilliyada jimcaha maalimaha kale ee wanaagsan ee ilaahay abuuray subxaana watacaala inaynu uga faa'iidaysano inaynu qaraabadeena xidhiidhino ama telefoon ku xidhiidhino ama u tagno ama waxaynu u qaban karnaa haynu siino aynu u tagno nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa beri u yimid markaasuu ayuu ku yihi rasuulka ilaahi waxaan leeyahay qaraabo aan xidhiidhiyo laakiin iyagu i jara waxbaan siiyaa waanu samafalaa laakiin iyagu xumaan bay igu bedelan maxaan ku sameeyaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam sidaa had sheegaysaa hadday run tahay sidaa had sheegaysaa hadday run tahay oo ay jirto sidaa had sheegaysaa hadday run tahay buu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam markhaati buu ilaahay adigana kuu samaynaya markhaati buu kuu samaynaya waxaad doonayso marka qofka wuxuu doonaya ilaahay u hagaajinaya subxaana watacaala marka qofku marka koobaad inuu qaraabadiisa ilaaliyo nebigu soo kale xadiis saxiixa wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam culimada inooga warramay laakiin anu waan idin xasuusinaya man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyasil rixamahu qofka markaa ilaahay aakhiro rumeeyey qaraabadiisa ha xidhiidhiyo ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaynu qaraabada xidhiidhina waxaa inoogu jira jiritaankeenna ayaa ku jira marka qaraabada aynu xidhiidhino
barnaamijkeenana waxa aynu ku soo ururinana dhowr talo oo kooban oo qofku qaraabadiisa ku xidhiidhin karo kow qofku inuu meesha ka saaro xumaanta dhexdooda taala ilma adeer baanu nahay iyo walaalaanu nahay iyo qaraabo kalaanu nahay oo beri bay waxna dhex mareen oo ma wada hadallo waxyaalo inaga yeelayo maaha ilaahay agtiisa qofku inuu isagu noqdo kii waxaa ka tanaasulay ee qofkii walaalkii ahaa xumaanta oo inta uu tago yidhaa waan ku saamaxay anigu ilaahay hortiisaan ku saamaxay dadka hortoodaan ku saamaxay dabadeedna isagay xujadii ku ogeysa hadduu qofku ku diido isagay ku ogeysa inaad noqoto kii markaasi kii salaada ku bilaabay ee khayrka ku bilaabay nabiguna wuxuu sheegay kaasaa khayr badan buu nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu doonayo in ubadkiisa iyo ooridiisa iyo gurigu kasoo toosaa inuu hagaago qofku ha isku dayo dadka qaraabadiisa inuu markaasi ehelkiisa uu aada uga warhayo oo caruurtooda ka warhayo dadka waaweyn uu ka warhayo hadduu wax ku tari karo oo wax siiyo hadday taladu ka qaloocatay uu talada markaasi u hagaajiyo oo wixii toosan uu sheego ayaa la inaga doonaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaaluu sheegay waxaa ka mid ah 3 inaanay jannada gelin 3daa waxaa ka mid ah nin qaraabadiisa jaray ayaa ka mid ah inaan waqtigeena ku qaadanin shaqo ama jaad cunis inaynu meel fadhiisano oo aynu qayilno ama soo kale aynu markaasi shaqo ku mashquulno dabeedna habeenkii aynu hoyno 12 afarta habeenimo ama 5 aynu guryaha kasoo kalahano dabeedna aynaan kaba warhaynin wax ka dhacaya sida daawadayaasha qaar noo sheegeen habeenkiina waqti dambe noo hoyna aroortiina waan kasoo kalahano marka qofku jaarkiisina ma ogaanayo qaraabadiisina ma ogaanayo haynu ilaahay kaga cabsano qaraabadeena qof walba waxaad niyadda ku haysato hadday wax xun yahay haynu qaraabada haynu saamaxno maanta haynu saamaxno laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeysay inagoo uga faa'iideysana bisha barakeysan Ramadaan inta waxaynu ku joojin doonaa barnaamijkeeni labaad inuu kaga hadlanay xidhiidhinta qaraabada iyo faa'iidooyinka laga helayo oo ah aanan wacdi fara badan idiin soo jeedin aayado quraana iyo xadiis fara badan oo culimada taa inoo soo jeedin tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmano aniga iyo akhyaarta igala qayb gashay xamse cumar iyo mukhtaar mursal xiin oo kamarada inoo joogay iyo aniga cabdullaahi beershiya dhamaantay waxaan ku dhaafanaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xalku halku ku jiro inuu ka warramo ومن كان فيها ذا مقام ودولة